السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت إذن كوسو دوادا جنالك فؤاد قبيلة ديد oo aan aala idin ku soo bandhigo sheekooyin iyo barnaamijka falcelinta Facebook kan nasiibka daawadayaasha iyo kuwa kale oo aan doonayo inaan idin soo bandhigo haddii ay buuni idmo dhawaan. فرح subscribe like and share mahadsanidin meel walba joogtaan. haddaba waxaan idin hayaa sheeko la yiraahdo gabadhii abaalka la'ayd. sheekadan waxay ku saabsan tahay gabar aad iyo aad u qurux badnayd indhahana la'ayd. wiil ayaa jeclaa gabadha aad iyo aad ayuu u koolkoolin jiray indhaha ayadoo la haddana maysan dareemi jirin baahida ay u qabto indha la'aanta. haddii goor wuxuu ahaa mid garab taagan oo dhinaceeda ka muuqda isagoo sii jiray wax walba ay u baahan tahay. gabadha iyada ahayd mar walba wiilku wuxuu su'aali jiray maxaad jeclaan lahayd oo kugu muhiimsan dunida. waxay dhihi jirtay mar uun inaan arko wejigaaga ayaan jeclaan lahaa oo dunida aragtideedu qiimo ima laha. waxa igu muhiimsan waa inaan wejigaaga arko qofka sidan ii jecel ee sidan nafsadiisa igu hibeeyay. markii dambe wuxuu go'aansaday gabadhii in uu ugu deeqo labadiisa indhood oo loo geliya ayada. dad badan waxaa suurtagal ah inay yaabaan ay yiraahdaan indhaha intii la bixiyo qof kale ma loogu deeqi karaa wax ma ku arki karaa. dunida way hormartay waana la gaaray qaliinka heerkiisu saas u sareeyo qofka intuu indho ku deeqo qof kale oo siiyo qofkii kale wax ku arko. qaliinka gabadhu waa lagu guuleystay. markii ugu horeysay ay dunida wax aragto waxay noqotay inay aragto ninkii koolkoolin jiray oo indhala. isla markii way naxday. waxay tiri war hebel waa ku sidee waa maxay ninkaagan indhaha la. adiga wuxuu isku dayay inuu jaceylkii halkii uu ka sii wado laakiin muddo kadib waxay tiri anigu ma doonayo nin indhala waxaan doonayaa nin indha qaba. markii aan indhaha la'aa waxaan ku malayn jiray nin indha qaba. anigu nin indhala xageen geenaya. hadda waa ninkii dhammaa ee indhihiisa ugu deeqay ayay saas leedahay. abaal daranaa ayaan daranaa waa asluub xumaa oo dad daranaa. gabadhii ninkii go'aan wuxuu qaatay inuu halkaas kaga haro balse wuxuu u qoray fariin uu leeyahay wax walba haleysay abaalaay ee kaliya waxaan kaa codsanayaa indhahayga inaad ilaalisid. qoftii waaga ayaa ku baryay. markii dambe waxay ogaatay inay indhahan ay yihiin indhihii ninkii jeclaa. halkii laga doonayay inuu u soo noqoto ay markeeda koolkooliso waxay ka raacday wiil yaroo muruqa kuuskuusan bay ka dooratay. haddaba sheekada nuxurkeedu wuxuu yahay mararka qaarkood waxaa jira kuwa aad kabahooda tulaysid oo kafantaada tulaya. weligaa qofka aadanaha ka rajayn rajo 100% ah. mar walba naftaada u tasho iskuna kalsoonow. xaddiga aad wax jeclaanaysid ahaado mid kuu qiimaysanoo macnaha jacaylku wuxuu yahay fahan. jacayl aysan dantaada ku jirin oo isfahan lahayn weligaa qof ha iska jeclaaneen. waa Fuad Qabyaaladiid oo sheekadii idin tabinayay tan iyo sheekadan mid lamid intaan ku kulmi doono waxaan ilaahay meel walba dunida ka joogtaan guuleysta. mahadsanidin. فرح subscribe like and share mahadsanidin meel walba joogtaan.